bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona xaalada siyaasadeed ee dalka oo markan cirka isku sii shareereysa xilli khilaafka madaxweynaha ku-xigeenka maamulka hirshabelle iyo madaxweynaha maamulkaasi weli oo cirka isku sii shareerayo wararkii ugu dambeeyay ee ku aadan xaalada guud ee Ukraine ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa. haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena like iyo shareka iyo commentiga noogu dadaala. aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya. weli waxaa adag xaalada guud ee doorashada xilli madaxda maamul goboleedyada culays xoogan ee kala kulmayaan beelaha ay kasoo jeedaan. Siciid Dani ayaa ku fashilmay qorshihii uu ka lahaa beesha Cumar Maxamuud laguna qasbay in uu doorashada faraha uu kala baxo. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyo mid ka mid ah beelaha dega Puntland ayaa heshiis ka gaaray khilaafka xoogga leh ee ku saabsan kuraasta ay leedahay beeshaasi. sida ay xogta ku heshay warbaahinta, Siciid Dani ayaa ogolaaday in si furan loogu tartamo kuraasta beesha Cumar Maxamuud kadib kulan uu la qaatay isimada gobolka Mudug. Dani iyo isimada ayaa waxay ku heshiiyeen in mar walba ay ka shaqeeyaan nabadda. isimada beesha Cumar Maxamuud waxaa hogaaminaya Islaan Bashiir Islaan Cabdulle, waxaana uu madaxweyne Dani u gudbiyay go-aanka kama dambeysta ah, taasi oo Dani ku qasabtay in uu aqbalo. kuraasta ay leedahay beesha ayaa kala ah Hob 198 iyo sidoo kale Hob 199, waxaana xubnaha kuraastaasi u sharaxan kamid ah wasiirkii hore arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq iyo gudoomiyaha Mudug Cabdilatiif Sanyare. madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa faragelin xoog leh ku sameynaya kuraasta golaha shacabka ee taala deegaanada Puntland, waxaana uu soo saaray xubno fara badan iyadoona uu haatan doonayay in xubno kale uu soo saaro. kuraasta sida cad uu u boobay oo hal maalin qaatay waxaa ka mid ah 16 kursi ee taalay magaalada Boosaaso, kuwaasi oo tartan la-aan la siiyey shakhsiyaad uu watay Dani. doorashada Soomaaliya ayaa sanadkan lagu tilmaamayaa inay tahay xulasho maadaama aysan jirin doorasho lagu kalsoonaan karo oo lagu soo saarayo xubnihii kusoo bixi lahaa kuraasta golaha shacabka markii laga reebo kuraasta fara ku tirisa. inkastoo doorashada cadaadiskeeda weli uu socdo, haddana waxaa madaxda maamul goboleedyada lagu eedeynayaa in ay wadaan boob ku aadan doorashada golaha shacabka. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xaalka doorashadu oo ka sii dari karo, inkastoo khilaafka madaxda maamul goboleedyada iyo ku-xigeenadooda ka dhex taagan uu yahay mid weli taagan. dhinaca kale haddii aan eegno Hirshabelle, madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa weli waxa uu doonayaa in doorashada kooxda Filla Soomaaliya si gooni ah loogu dadaalo. kooxda Filla Soomaaliya ayaa waxa ay qarash fara badan ay la garab taagan tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, xilli madaxweynaha maamulkaasi Cali Gudraw Xuseen uu si weyn uga soo horjeedo go-aan kasta oo ku aadan xaaladaha siyaasadeed ee haatan jiri kara. mararka qaarkood waxaa cabsi xoogan laga qabaa in dagaal uu ka dhaco qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne ee caasimada gobolka Hiiraan. Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa horey waxa uu sheegay in uu si gooni ah uu garab taagan yahay kooxda Filla Soomaaliya. lama ogasa wax walba sida ay isku bedeli karaan. xaalka doorashada ayaa waxa uu muuqanayaa mid haatan baqdin xoogan laga muujinayo, iyadoo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada dalku ay rajada ugu wanaagsan ay leeyihiin ay tahay in wax waliba ay si fudud ay kusoo gabagaboobaan. lama ogasa wax walba sida ay noqon doonaan. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Gudraw Xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa horey waxay ugu ballameen inay si gooni ah uga shaqeeyaan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. hase ahaatee culays siyaasadeed oo la kulmay madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxa uu gebi ahaanba haatan u muuqanaya in ballamihii hore uu la galay kooxda Filla Soomaaliya uu gebi ahaanba uu ka baxay. waxaana haatan u muuqanaysa in caqabada adag ay haatan wajahayaan qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta. dhinaca kalena daawadayaal, Maxamed Xuseen Rooble ayaa caqabado xoogan ka haysta doorashada magaalada Garbaharey ee gobolka Gadow. ismariwaaga ka taagan doorashada ayaa ah mid saameyn badan ay ku yeelanayso, iyadoona magaalada Garbaharey ay noqonayso caqabada uu wajahayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Garbahare oo deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ayaa waxaa yaala 16 kursi oo kuraasta golaha shacabka deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Gado. Maamulka gobolka Gado oo gadaal ka riixaysa Villa Soomaaliya ayaa si buuxda is-hor istaag ku sameynaya in magaaladaasi ay tagaan guddiga ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay si ay u soo qiimeeyaan xaaladda xarunta gobolka Gado ee Garbahare. Xafiiska ra'iisul wasaare Roble oo geed gaaban iyo mid dheer u fuulaya sidii guddigaasi uu ku tagi lahaa magaalada Garbahare ayaa haatan u muuqda mid quus ka muujinaya haddii aanan albaabada kale ee furmin. Ila wareedyo ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha uu khamiistii safiirka Mareykanka dalka u joogo Larry Andrew u sheegay in caqabada ay ka haystaan doorashada Garbahare oo aan halkaasi doorasho lagu qaban karin. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa sidoo kale safiirka Mareykanka ku wargeliyay in magaaladaasi lagu qaban karin wax doorasho ah bacdama waqtigii lagu heshiiyay in doorashada golaha lasoo gabagabeeyo ay ku egtahay 15 bishan. Roble iyo Axmed Madoobe ayaa isku raacay in doorashada laga wareejiyo magaalada Garbahare oo la geeyo magaalada Kismaayo, balse ma cadda xilliga ay ku dhawaaqi doonaan. Ma cadda tallaabada xigta ee Mareykanka uu qaadi doono, inkastoo dhowaan uu sheegay in xayiraad uu ku soo rogi doono kuwa caqabadaha ku ah habraaca doorashada dalka. Si kastaba ha ahaatee, doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa mar kale qarka u saaran inay dib u dhac uu ku yimaado oo ay dhaafto 15 Maarso. Madaxda maamul goboleedyada ayaa caqabado xoogan la kulmaya, inkastoo wax waliba ay isbedeli karaan. Dhinaca kalena, shirqoolo siyaasadeed oo cusub ayaa mar kale farmaajiyay lafta gareen waxay u dejinayaan xildhibaanada dooran. Warbaahinta ayaa waxay heshay macluumaad qarsoodi ah oo ku saabsan ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo ee bilaabayo, isagoona markan doonaya in uu tago magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Akhbaaraadka ayaa waxa ay sheegayaan in safarka madaxweyne Farmaajo maalmaha soo socda uu ugu wajahan yahay Baydhabo, isagoona dhowaan dib ugu soo laabtay dalka Qatar oo la rumeysan yahay inuu dhaqaalihii dib u doorashadiisa uu ka doontay dalkaasi. Magaalada Baydhabo Janaayo ayaa buqcad u noqon doonta bilowga loolanka doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee loo ballansan yahay dhowaan. Ila wareedyo la helay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo iclaamin doono qabashada shirweyne looga hadlayo bayaca ama heshiis siyaasadeed oo la gaaro sida qorshaha uu yahay. Isbuuca soo socda ayaa Baydhabo shirkaasi uu ka dhici doonaa, iyadoona ay ka qaybgeli doonaan xildhibaanada ka soo baxay golaha shacabka magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe ee Koonfur Galbeed, waxaana uu kala hadli doonaa arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan madaxweynaha iyo codadka uu halkaasi uu ka heli karo. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee dooran kana soo baxay Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa mid walba waxa uu ku yimid rabitaanka madaxweyne lafta gareen, waana midda la sii og yahay in hal ama labo ay markan mucaaradku ay halkaasi ay ku yeelan doonaan. Sidoo kale, magaalada Baydhabo ayaa waxay wararku ay sheegayaan inay tegi doonaan xildhibaano kale oo loo maleynayo in maamul goboleedyada qaarkood ay ka socdaan, balse fiilo ahaan ku falsafad ah lafta gareen. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa martigeli doona isimada dhaqanka Somaliland ee ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo xildhibaanada Somaliland ee lagu doortay Xamar, waxaana socdaal ay ku aadi doonaan magaalada Baydhabo Janaayo, iyadoona ka wada hadli doona siyaasadda ay ku yeelan doonaan qaabka isbedelka iyo madaxweynaha dowladda sida loo taageeri doonaa. Hardanka ballaaran ee xafiiska madaxweyne Farmaajo uu bilaabay ayaa durbaba abuuray baqdin siyaasadeed oo soo wajahday dhinaca mucaaradka. Xilli Dani iyo Shariif iyo Kheyre ay yihiin saddexda musharax ee Farmaajo gelin kara cariiriga doorashada. Madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, Daahir Geyle, Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ah musharaxiin kale oo u muuqda siyaasadooda mid hooseysa, iyadoona aan tartan xoogan ayna la geli karin madaxweyne Farmaajo. Loolanka doorashada madaxweynaha ayaa hadda u muuqata mid sii bilaawatay, waxaana Farmaajo iyo xulafadiisa ay ku xisaabtamayaan codadka xildhibaanada Koonfur Galbeed, kuwa gobolada waqooyi ee Xamar lagu doortay, badi xildhibaanada kasoo galay Hirshabelle, kuwa Banaadiriga, xildhibaanada Jubbaland, Galmudug qaarkood ayay doonayaan inay helaan codadkooda. Lama oga wax walba sida ay isku bedeli karto doorashada golaha shacabka, haddana tartanka weli waa uu furan yahay.
dhanka kale sanadkan ayaa waxay u muuqanaysaa doorashadu in xamaasad gooni ah ay yeelanayso. doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli soo jiitamaysa iyadoona maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga kama dambaysta ah ee la qorsheeyay in lagu soo gabagabeeyo doorashada ee 15 Maarso sanadka 2022 oo dhigaya heshiiskii ugu dambeeyay golaha wadatashiga qaran oo cadaadis kala kulmaya xubnaha beesha caalamka iyo Mareykanka. waxaa ka mid ah in deegaanada lagu muroosan yahay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo Jubbaland halkaasi guddiga xalinta soo saareen in ay go'aan cad ay ka qaadi doonaan, laakiin waxaa jira caqabado adag oo ku aadan sidii aqalka hoose loo soo gabagabeyn lahaa iyadoo Mareykanku ay horey u sheegeen inay tallaabooyin adag ay qaadi doonaan. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa uu sheegay in ay haatan ay jirto caqabado adag isla markaana loo baahan yahay in caqabadahaasi laga gudbo. Sharmaarke ayaa waxa uu sheegay in uu mar walba uu la socdo xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka iyadoo madaxda maamul goboleedyadu cadaadis ay la kulmayaan. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay mar walba loo baahan yahay in wax waliba laga fogaado. guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga intaa. haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.